Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtay daawanaysay waan idin salaamay meel kasta dunida ka joogtaan. Waan idin soo dhaweynayaa. Fadlan soo dhawaada, arrin muhiim ayaan rabaa inaan ka hadlo. Walaal adigay daawanayso waxaan ka rajeynayaa inaad fursaddan aad ka faa'iidaysato, aad dhegeysato, aadna ku soo dhawaataa muuqaalkan aan maanta idiin soo gudbinayo. Waayo waa muuqaal aad iyo aad u muhiima. Waxaan rajeynayaa in ummad badan oo Soomaalida oo YouTube ku jirto inay ka faa'iideysan doonaan insha Allah. Marka waana arrin xasaasi ah oo maalmahan YouTube ka socota si arkaysiinba. Dad badan ayaa waxay u maleynayaan in macnaha YouTube ka shuruuda in wax laga bedelayo. Taasna ay kastoo aan u maleeyaa aan arkay inay dad badan cabsi gelisay ayagoo maartay oon u fiirsanin oo waxyaalo badan aan soo ogaanin in macnaha ay dareemaan cabsi. Marka arrintaas ayaan rabaa in aan idinkala hadlo, aan idinka sheego wixii aan ka ogahay. Marka sida arkayseenba hadda gabar waxaa jirtay darato oo YouTube-ka codsi u dirsatay YouTuber kale. YouTuberadaas ay ka mid yihiin kow waxay dhahday Muniir, waxay kaloo sheegtay Asad Xaajow, iyo waxay kaloo sheegtay Kamal Cabdul. Ugu dambeystii way u soo jawaabeen, laakiin intaas ka hor kisto gabadha waan dareemayaa wixii soo martay. Halkan ayaan ka salaamayaa Farxiya Soomaali. Horta fariintan waxay ku socotaa khaasatan Farxiya markaan aan daawaday muuqaalkeeda ayada oo la joogto farto balbalaarka ayna ka hadleen shuruudaha YouTube-ka ayaa igu kaliftay in macnaha mar labaad aan shuruudahaas ka hadlo, aan idin sheego waxyaalaha dhabta ee saxda ah ee YouTube-ka ay ka bedeshay iyo waxyaalaha ay ku soo kordhisay. Sida ka maqlayseenba gabadhaas walaasheen Farxiya Soomaali oo hore YouTube channel-keeda u ahaa muxuu ahaa waxaas waan iloway, laakiin waxaas Turki u ahaa. Hadda way ka bedeshay, laakiin Farxiya Soomaali waa iyo walaasheen ayadana farto balbalaarka. Labadaba halkan aan ka salaamayaa. Marka xaqiiqada dhabta jirto ayaan jeclahay maanta inaan la wadaago. Fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan haddii aad daawato in aad noo sii shaagareyso si ummadda Soomaalida oo YouTube-ka ku jirto ay u wada gaarto ayadoona ka faa'iideysan doonaan fursaddaneeto. Sidaan qof walba oo YouTube-ka ku jiro ama daawada ha ahaado ama qof asaga oo YouTuber ha ahaado, waxaad maqasheen YouTube-ka in laga bedelay shuruuda. Haddaba shuruudahaas YouTube-ka laga bedelay ama lagu soo kordhiyay maxaa ka mid ah? Muuqaalkaas oo dhammaystiran oo aan kaga hadlayo shuruudahaas iyo waxyaalaha laga bedelay halkan YouTube channel-kayga ay ku jira. Dib haddaad ugu laabato muuqaaladeeda waa arkaysaa. Fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalkaas inaad soo daawatid kadibna aad sheegareysid si ay dad badan uga faa'iideystaan ayna ay u ogaadaan macnaha waxyaalaha laga bedelay YouTube-ka iyo waxyaalaha lagu soo kordhiyay. Okay, haddaan arrinta gudaha u galo, horta midda koowaad YouTube-ka sidaa qof walba uu maleynayo maaha. YouTube-ka wuu iska dhib badan yahay, waa shaqo dhib badan waaye oo u baahan dadaal iyo dulqaad. Midda koowaad waa inaad dadaashaa, adiga aad dadaal la imaataa. Midda labaadna waa dulqaad inaad yeelataa. Dadaalka hadaad la imaato oo dulqaadkan aad yeelato, wixii kale wuu iska imaanaya. Haddii aad qof aad weydiisto caawinaadda ma xuma, qofku waa weydiisan kartaa adigoo dadaaleyso oo YouTube-ka ku jiro oo YouTube-ka muuqaalo soo gelinayo oo maalin kasta muuqaal soo gelinaya ayaa haddana waxaa u baahan tahay qof macnaha shoutout ku sameeya oo macnaha qofka kale u xayeysiiya oo dhaha qofkan asagana waa YouTuber, fadlan hala soo booqdo, waxyaalo badan ayuu soo geliyaa. Sidaas ay ayadana dadka kugu soo booqanayaan. Marka caawinaadda qofka ay weydiisanayso wax xun maaha, laakiin waan ka xumahay gabadhaaseeto Farxiya Soomaali sidii loola dhaqmay ayadoo aan dareemi kara macnaha xaaladda ayada marka ayada ay ku jirtay. Waana dareemi karaa qof kasta oo YouTuber-na uu ogyahay qof markii aad ka codsato shoutout inta sida daacadda kuugu soo jawaabto ama kuu caawiso way yartahay, boqolkiiba way yartahay.
marka sidaan ognahayba arrinta ayada ahay waa arrin kastoo laga yar fiican yahay. Qofka walaalka hadduu ku weydiisto caawinaad, hadduu ku weydiisto waxaa wanaagsan inaad caawiso. Adigaba maanta meesha aad taagan tahay 300,000 oo subscriberska ama 400,000 oo subscriberska ama 500,000 oo subscriberska aad maanta haysato, adiga meeshaas ismaad gaarsiinin. Dadka walaalaha Soomaalida ayaa ku gaarsiiyey. Adigoo shalay waad soo martay meesha hadda gabadha ay taagan tahay, kow ayaad ka soo bilowday, waa lagu taageeray, waa lagu caawiyey, halkaas ayaa gaartay. Marka maxaad ku didaysaa qof walaalka oo maanta jeclaystay in adiga uu ku weydiisto caawinaad inaad macnaha aad ku dhageysatid mise aad caawin wayso? Taas waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro. Khaasatan waxaa la hadlayaa youtuberada Soomaalida. Qofkan hadduu ikhtiyaar baad leedahay, qofka daarta waa caawin kartaa, daarta ma caawin kartid. Laakiin midda bini'aadanimada ku jirta ayaa waxay tahay qofkan haddii aad aragto qofka inuu qof youtuber u yahay oo YouTube channelka uu YouTube ka soo galay, haddii aad fiiriso muuqaaladiisa aad aragtay inuu muuqaalo soo geliyo, maalin kasta muuqaal uu soo geliyo, haddana oo wixii aan u kala soconin, waxa u baahan yahay keli waa wax yar oo shoutout keli waa. Shoutout keli haddaa u sameyso, aad dhahdo qofkan channelkiisa la soo booqdo, muuqaalo ayuu soo geliyaa, waxaan umaleynaya inaad ka heli doontaan. Intaas keliya ayaa ku filan. Intaasna mahad weyn ayuu kaa celin doonaa. Wax weyn ma aha, wax adagna ma aha. Marka youtuberada Soomaalida waxaan leeyahay fadlan waxaan ka codsanayaa in aad wax iska bedeshaan oo qofka alla qofkii idin soo codsado oo idin dhaho walaalo waxaas hal ila qabto, waxaan ka codsanayaa inaad at least wax la qabataan, because YouTube-ka waa iska dhib badan. Qofka inkastoo ay dadaalkiisa ay ku xiran tahay, hadda ma dhahay qof kale oo ku caawiyo ama shoutout kuu sameeyo ama qofkan subscriber loo saaro in YouTube-kaada uu badanaa kugu kala kicinin, oo loo baahan yahay in adiga dadaal la imaato. Midii koowaad horta waxaad ogaataa dadaalkaada inay wax kasta ay ku xiran tahay. Haddii dadaal la imaatid dabcan waad guuleysanaysaa insha Allah. Adigna aad Ilaahay isku xirto, waayo wax kasto Ilaahay ayaa sababa. Dadaalkeeda haddaad la imaatid oo wax kastana aad sameysid, wax kasta ay ku hagaagaan insha Allah. Haddii aan markaan mawduuca gudaha u sii galo, waxaan rabaa inaan idin sheego waxyaalaha ay YouTube-ka ay ka bedeshay. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan walaashay Farxiyo Soomaali iyo dad badan oo youtuber oo Soomaali ah u maleynayaan YouTube-ka shuruudaha sanadka soo socda, sanadka cusub in la adkeyn doono oo wax laga bedeli doono. Waxaan rabaa inaan u sheego inay isdejiyaan, xaaladda ay dejiyaan, waayo aniga ayaa soo ogaaday oona og shuruudaha cusub ee YouTube-ka kusoo kordhisay. Marka waxaan arkay dad badan inay taasi cabsi gelisay oo macnaha sanadka cusub in shuruudaha la adkeyn doono YouTube-ka, taasoo sababtay inay dad badan ay cabsi geliyaan, ay macnaha dadkii ay iska qayli ay soo dirsanayaan oo nin kasta oo fadhiga uu ka kacay. Aad u maleynayso in YouTube-ka hadda ay Soomaalida uu jahwareer ku hayo. Arrintaas xaalkeeda ayaan rabaa inaan dejiyo. Muuqaalkan waxaan rajeynayaa inuu gaari doono qof walba oo arrintaas waxba ka ogeen, qof walba Soomaali ah, qof walba YouTuber ah. Fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii share gareysaan si dhammaan ummadda Soomaalida uu gaaro, khaasatan walaashay Farxiyo Soomaali iyo Fartuun Balbalaarka ay dad badan aan rajeynayaa inuu gaari doono oo ayagana ay muuqaalkan sii share gareyn doonaan insha Allah. Marka bisha hadda November taariikhda markay ahayd 18 ayaa YouTube-ka wuxuu soo geliyay bagiisa YouTube-ka oo macnaha official page-kiisa. waxaa la yiraahdaa haddii aad ku qorto Google Chrome-kaada blog.youtube haddaad ku qorto wuu ku geenayaa bogga officialka YouTube-ka. Halkaas ayaa waxay soo geliyeen YouTube-ka ayaa wuxuu sameeyey terms of service-ka, macnaha nidaamka uu ku shaqeeyo ayuu wax ka bedelay, update ayuuna ku sameeyey. Waxayna ahayd taariikhda bisha 18 November ayay ahayd. Halkaas uu soo geliyey xanshidii oo uu ugu talagalay in macnaha dadka ay akhristaan. Haddaba xanshidaas waan arkay, sidaan horeyna idinku sheegana channelkayga ayay ku jirtaa iyadoo oo muuqaal kaligeed kaga hadlayo iyo shuruudda ay YouTube-ka kusoo kordhisay.
marka xaashidaas markii aan akhristay si fiican aan u akhristay waxaan ogaaday in taariikhda markay ahayd 18 YouTube-ka uu shuruud cusub uu kusoo kordhiyey shuruudihiisa waxaana ka mid shuruudahaas ay dhaheen taariikhdana waxay ahayd 18 bishii November hadda adi bil ayaa kasoo wareegtay ayaa YouTube-ka wuxuu wax ka bedelay terms of service kiisa ayuu wax ka bedelay wuxuuna ka bedelay horta marka ayada waxay dhaheen isbedelkan dhacaya oo maanta laga bilaabo taariikhda 18 with immediate effect wuxuu marka ayada si toos uga bilaabanaya cid alla ciddii Mareykanka joogto qof alla qofkii Mareykanka joogo ayaa si toos ah maalinta ayada bishii 18 ayay u bilaabatay isbedelkaas hadda waxaa isweydiinaysaa maxay tahay isbedelkaas ay sameysay shirkadda YouTube-ka ayna kusoo kordhisay shuruudaheeda isbedelka ay sameysay ama shuruudda cusub ay kusoo kordhisay waxaa waaye YouTube-ka ayaa wuxuu uu go-aan ku gaaray in okay dadka marka Mareykanka horta intaan haddii aan usoo noqdo jawaabtaas dadka macnaha Mareykanka ka baxsan ayagana isbedelkan wuxuu ku bilaaban doonaa waxay dhaheen sanadka soo socda 2021ka ilaa iyo bish lixaad macnaha mid year ay dhaheen sanadka dhexdiisa macnaha ilaa iyo bish lixaad ayuu ku bilaaban doonaa isbedelkaas hadda waxaa isweydiinaysaa isbedelka muxuu yahay isbedelka ayaa wuxuu yahay YouTube-ka ayaa wuxuu soo gelin doonaa xayisiin channelkaada asigoo xitaa weli aan lagu aqbalin aan lagu gelinin YouTube Partner Program-ka waxa la dhahay waxaa jirta YouTube Partner Program haddaba YouTube Partner Program-ka waa markii aad lagu aqbalo YouTube-ka aad shuruudaha kasoo baxdo aad gaartid 1000 subscribers-ka sidaan ognahayba YouTube-ka shuruudda laga rabo koowaad waxaa waaye in channelkaada uu gaaro 1000 subscribers iyo 4000 watch hours haddaba adigoo weli shuruudahaas buuxinin oo weli aan monetization-ka aan lagu furin monetization-ka dabcan waxaa la dhahaa xayisiinta aan weli lagu furin oo lacagta aan lagu bilaabin ayaa YouTube-ka wuxuu sameyn doonaa channelkaada wuxuu soo gelin doonaa xayisiintaas oo wax lacag aada ku heli doonin waxaan rajeynayaa inay fahamteen waan idinku soo celinayaa YouTube-ka ayaa wuxuu isbedel ku sameeyey channelada yaryar oo weli shuruudihii aan buuxinin oo monetization-ka aan weli aan loo approve garin aan la aqbalin xayisiinta aan weli loo soo dirin macnaha shuruudihii aan weli buuxinin ayadoo saa ay tahay oo shuruudii weli aad soo buuxinin ayaa haddana YouTube-ka wuxuu soo gelin doonaa xayisiin channelkaada ayadoo oon wax lacag aad ku heli doonin marka shuruudda keliya ay YouTube-ka kusoo kordhisay shuruudaheeda waa midaas wax aan ku arkay ay yiraahdeen ama 1000 subscribers-ka ayaa la kordhin doonaa misana 4000 watch hours-ka ayaa la badin doonaa midna ma jirto marka Soomaaliya waxaan leeyahay isdejiya xaalka dejiya haddii aad YouTube-ka ku jirtay sidii degnaan ah waxyaalaha aad u wadatay u sii wado waxba ha iswaalin hadhihin macnaha YouTube-ki waa shuruudihii waa la adkeynayaa sanadka cusub 2021ka waa inaan inta u ordaa waa inaan qayli aan dirsadaa waa inaan heblow aan dhahayo caawi waxyaalaha aan lagaa filinayn inaad ku dhaqaaqdo ayaan hadda aan kaaga digayaa macnaha isdeji wax shuruud hadda aniga aan arkay oo YouTube-ka lagu soo kordhinayo ama la adkeynayo ma jirta kaliya aan ka ahayn YouTube-ka ayaa wuxuu fursad u arkay haddii aan ku fasiro macnaha sababta ay ula jeedaan macnaha ay u yeelayaan channelkan shuruudihiiba muu buuxinine weli xataa monetization-ka xayisiinta weli looma aqbalin shuruudihii sababta ay ugu soo dirayso maxaa waaye xayisiinta haddii la isweydiiyo channelo yaryar oo qaar waxaa jiraan muuqaalada ay soo geliyaan qaarkood oo qarxayaan oo viral noqonayaan ayadoona wax xayisiin aan lahayn marka YouTube-ka ayaa wuxuu u arkay inay fursad tahay uuna ka faa'iideysan karo uuna xayisiin soo gelin doono channeladaas yaryar xayisiintaas oo ayaga wax faa'iido ay ku heli doonaan adiga laakiin aan wax lacag aad ka sameyn doonin marka taas kaliya waa mid hadda ay ka bedeen shuruudda YouTube-ka waxaan rajeynayaa inay fahanteen fadlan waxaan codsanayaa in muuqaalkan dad badan oo Soomaali ah uu gaaro waxaan ka codsanayaa inaad share gareysaan si ummadda kale Soomaalida oo hadda aan arkay in macnaha arrinta ayada walwal
ay ku hayso inay ogaadaan ay dhabta jirto ay ogaadaan. xaqiiqada jirto waxaa waaye wax aniga hadda aan ku arkay bogga YouTube official page-ka waad tagi kartaa, waad booqan kartaa, waxaad ku qoraysaa Chrome-kaada blog youtube.blog ku qoraysaa official blogga YouTube-ka ayuu ku geenayaa. marka YouTube-ka update-ka uu sameeyey kudii wax kasta meeshaas ay ka arkaysaa. update-ka kaliya uu sameeyey waa midda ayada kaliya wuxuu wax ka bedelay. waxaan rajeynayaa inay fahanteen channelka yar oo weli aan monetizationka weli aan loo sameynin. monetizationka macnaha waxaa waaye weli aan haysiinta lacagta lagu helo weli aan loo bilaabin oo shuruudii weli aan buuxinin ayaa waxay soo gelin doonaan muuqaal xayeysiina, muuqaalkaas oo wax lacagaada ka sameyn doonin. marka dadkan hadda wixii Mareykanka ka baxsan ayada waxay bilaabanaysaa ayay dhaheen sidaan hore idinku sheegay sanadka cusub 2021 bishii 6aad. haddaba bishii 6aad 2021 wixii laga bilaabo haddii marka ayada shuruudaha aan weli aada buuxinin oo qaybta monetizationka aan lagu approve gareyn aan la aqbalin oo weli shuruudihii ay wax ku dhiman yihiin watch hours-ka iyo subscribers-ka weli wax kaga dhiman yihiin bishii 6aad 2021 marka la gaaro ayaa YouTube-ka wuxuu soo gelin doonaa channelkaada asagoo channel yar iska xayeysiintaas oo wax lacagaada ka sameyn doonin. haddaba channelada waaweyn ayadana maxay saameyn ku yeelan doontaa ayadana waxaan u maleynayaa inay saameyn ku yeelan doonto waayo haddii channelka weyn oo xayeysiinta monetizationka loo soo diraayo YouTube-ka maadaama ay fursad u heshay channelo yaryar oo videoyada ay soo geliyaan videoyada qaarna oo macnaha viral noqdaan haddii fursad u heshay in ay muuqaal xayeysiina ay gashan karto channeladaas ayadoo qofkaasna waxba lacag uu ka sameyn karin YouTube-ka asagana uu lacag ka sameynayo ayaa waxaan u maleynayaa channelada waaweyn in macnaha hoos u dhac uu ku imaan karo haddii ay noqoto xayeysiinta oo haddii lacala xayeysiin badan loo soo diraayo ay 4 xayeysiin loo soo diraayo ama 5 xayeysiin ay macnaha 3 xayeysiin ama 2 xayeysiin ay loo soo diri doono ay labada kalena ay channeladaas kale ay gashan doonaan. marka waxaan u maleynayaa inaad fahanteen walaalayaal Soomaalida meel kasta dunida ka joogtaan. fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii share gareyso anigana channelkeena aad subscribe noo saarto si aad muuqaaladan iyo muuqaalo kale oo macnaha dhameystiran oo macnaha update aad ula socon doonto insha Allah. haddii aad rabto muuqaalkii macnaha aan kaga hadlay shuruuda cusub oo lagu soo kordhiyay YouTube-ka asagoo macnaha gooni ah oo muuqaalkaas kaliya channelkayga ayuu ku jiraa dib ayaad ugu laaban kartaa muuqaalada. marka intaan muuqaalkan iyo muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.